bismillaahi raxmaani raxiim idilaahaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland warkana waxaa idin soo jeedi doona anigoo Jamaal Axmed Naasira wafdigii ballaadhna uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay degmada Gar-adag madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo wafdi ballaadhan uu hogaaminayay ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Gar-adag ee gobolka Sanaag madaxweynaha ayaa soo dhaweyntiisa waxa ka qayb qaadanayay bahda waxbarashada oo iyadu ilaa iyo saaka waa berigi safaf dhaaf dheer ugu jirtay sidii ay u soo dhaweyn lahayd madaxweynaha markaana ruuxay caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa madaxweynaha soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay waayeelka waxgaradka cuqaasha iyo siyaasiyiinta degmada iyo maamulka degmada oo iyagu ahaa kuwa u helan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray degmada loo soo galbiyay dhanka gobka degmada Gar-adag ee ay ku caan ka tahay halkaas khudbada uga jeediyeen madaxweynaha iyo wafdigiisu dadweynaha reer Gar-adag ugu horreyn waxaa halka ka hadlay Chief Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi maayirka degmada Gar-adag Faarax Aadan Ciise iyo Suldaan Carab Cabdi Cali isaguna waxaa halka ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada waxaan kaloo shaqada ragnahay oo ku hadlaya halka cadeynayna inaan ku soo socday toban sano madaxweyne kalena raali ka ahayn oo wardiisku xabal caawleena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada degmada Gar-adag baan ku soo dhaweynaya waxaan leenahay madaxweyne iyo wafdigaaguba ku soo dhawaada madaxweyne si aadiga ah ayaanu ku soo dhaweynaa adiga iyo wafdigaaga ballaaran ee aad horkacayso degmada Gar-adag dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida salaadiinta ugaasha siyaasiyiinta culimaadudiinta waxgaradka garabada haweenka ardayda dugsiyada ciidamada kala duwan iyo dhammaanba bulshooyinka si dhaba inaan idin soo dhaweeyo madaxweynihii ugu waxtarka badnaa waddanka ilaa iyo maalintii aynu istaagnay inaad tahay baanu kugu soo dhaweynayna waxaanu kaloo madaxweyne kugu soo dhaweynaynaa inaad tahay kuwa ka dambeeya kuwii ka horeeya markiinu kuwa ka dambeeyeyna wasalaamu calaa man laa nabiya bacda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud marwada madaxweynaha Amina Maxamed Jirde wasiirka waxbarashada wasiirka madaxtooyada wasiirka caafimaadka wasiirka boosaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha labada taliye wasiirka beeraha wasiirka dibadejinta iyo wasiirka golayaasha dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyaguna halkaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha Faarax Cilmi Geedole wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha علي محمد ورعد وزيرك وزارة عافمادك سليمان عيسى حقلته guntiga gabagabadina waxa xaflada soo afmeeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo halkan ka hadashay ama fadhida iyo madaxda iyo dhammaan bulshooyinka reer Gar-adag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne odayaashii halkan ka hadlay ee ugu horeeyo Suldaan Carab ورنتي عن جعلها إلى هاكل مهدوين وعليون إساقا إيا سراتين كلا ودورا ودور كلا أمدك مدعا ورنتي عن قصفين كالرو ودولة الحمولين رحمنا جمهورية الصومالية مروان الكوبان وفتك مدحوينها جمانتي إيا كرشدة ناقر هذا بكورة وحبيب السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka labaad waxaan u ducaynayaa madaxweynaha oo ilaahay siiyey awood iyo codsigiinni waxaan
waxaan idin sheegayaa inaanu MCH noqonayo iminka inuu noqonayo heer santal xukumo oo looga yimaado shaqooyinkooda intaa markaan ka gudbo waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan ku soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha reer Galmudug iyo madaxdooda iyo saacadinta aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad noo soo dhaweyseen ilaa dhalinyarada ilaa dadkii noloba nooga hor timaadeen aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa markii ugu horeysay Galmudug maaha horaanu imid waqtigii aan ahaa ololaha ku jiray baa halkan imid geedkan hoostiisa asaa lagu soo dhaweeyey taageero fara badan baa ku helay dadkan iyo shacbiga ka helay maantana runtii abaal baan ugu hayaa waxaan leeyahay safar dheer baanu maanta soo gallay kii aanu marayna dalku marayna baanu ku maraynaa waxaanu u jeednaa baahi horta dalku meel walba yaalla aad iyo aad bay u fara badan yihiin aanu soo oganin sidoo kale iyaguna safarka madaxweynaha waxaa ku wehelinayay marwada koowaad ee madaxweynaha koox ka mid ah golaha wasiirada ومدر آن سعيد في قرنك الدقمة قرضك madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ayaa xariga ka jaray mashaariic cusub oo laga hirgeliyay gobolka Togdheer magaala madaxdiisa Burco halka uu qaar kalena dhagax dhigay warkaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Burco Cabdisataar Cabdullaahi Sabri madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay saaka mashaariic aad u tiro badan qaarkoodna xadhiga ay ka jireen qaarkoodna ay dhagax dhigeen madaxweynaha Somaliland ugu horreyn waxa uu xadhiga ka jaray aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco kaasoo ay maalgelisay wasaaradda madaxtooyada Somaliland isla markaana ay si rasmi ah u dhistay shirkadda Barako Group oo kamid ah shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala dhismayaasha Somaliland madaxweynaha ayaa xadhig ka jaristaasi kadib waxa uu cabiray dareenkiisa maadaama ay tahay markii ugu horeysay magaalada Burco aqal sidan oo kale u bilicsan laga dhiso ugu faraxsanahay inaan furo maanta halkan guri state house kan oo muddo badan laga shaqeynayay Burcana u baahnay maanta aan aragno inuu wax weyn oo qiimeeya qaadal inuu yahay aad iyo aad u fiican wanaagsan raaxadan u saxnay xalayto aad iyo aad madaxweynaha Somaliland intaasi kadib waxa uu bogcad ballaaran kala hadlay dadka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo soo buux dhaafiyay bogcad ballaaran oo ku taala xarunta maamulka gobolka Togdheer Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dadweynaha reer Burco aad baan ku mahadinaynaa sida qiimaha iyo qaale aad noo soo dhaweyseen taasoo caadadiina ah waxaa farxad weyn noo ah inaan idin sheegno inaan soo wareegaynay gobollo badan oo dal ka mid ah qaybo badan oo hore loo tegin madaxina tegin cid kalena tegin oo maanta ku faraxsanayd inay arkaan madaxdoodii u timid waxaanu mashaariic baan u soo furray waanu dalkaan uga warranay dadkaan uga warranay ummaddiyo dalkiiyo dadkaan isku xidhanaa ilaahay waxaan ka baryaa in nagu guuliyo meelaynu joognaba idinkana aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa soo dhaweyseen idinkana wixii mashaariic la furayo iyo jaamacaddii iyo waxaasaanu tegaynaa sida soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sida caadada iyo dhaqanka idin ahayd aad baa u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxa uu intaasi kadib xadhiga ka jaray wado cusub oo laamiya oo dhex marta bartamaha magaalada Burco taasoo ay maalgelisay dawladda hoose ee magaalada Burco wadadaasi hareeraheeda ayaa waxay soo buux dhaafiyay boqolaal dad oo ka tirsan dadweynaha magaalada Burco oo shucuurta iyo dareenka u hayaan madaxweynahooda guud ahaanba sacab iyo yididiilo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Somaliland sidoo kale waxa uu dhagax dhigay wado ay dawladda hoose dhisayso oo laami ka dhigayso oo isku xidhi doonta jaamacadda magaalada Burco iyo guud ahaanba gudaha magaalada maadaama jaamacadda Burco ay in doora ka baxsan tahay magaalada
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xariga ka jaray xarunta hijiimada ee dimokaalada biyaha ee magaalada Burco dib u habeyn lagu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa habeenkii xalay waxa uu soo gaaray guud ahaanba magaalada Burco iyadoo tan iyo xal iyo saakana dadka reer Burco guud ahaanba ay carabka ku hayeen imaatinka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isla markaana shucuurta iyo dareenka dadka reer Burco uu ka duwanaa imaashiyihii hore u iman jiray magaalada tan Burco madaxweyne Axmed Cabdisatar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar shaqo ugu maqnaa wadanka China ayaa dalka dib ugu soo laabtay warkaasina waxa inoo eegi doona wariye Muuse Warsame Guuleed wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Injineer Xuseen Cabdi Ducaali oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha waaxda macdanta ee wasaaraddaasi ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay soo dhameysteen safar shaqo ay muddo toddobaad ugu maqnaayeen dalka Shiinaha halkaas oo ay ku qaabileen mas'uuliyiinta shirkadda Donson Energy Group oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca macdanta ee dalka Shiinaha oo iyadu dhawaan Soomaaliland la gashay heshiis hordhac ah oo dhinaca macdan baarista ah wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Injineer Xuseen Cabdi Ducaali oo qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay waxa uu ka warramay ujeedada safarkaasi waxaana xusay in mas'uuliyiinta shirkadda Donson Energy Group ay si weyn ugu soo dhaweeyeen dalkaasi waxa kale oo uu sheegay in safarkaasi ahaa mid taariikhi ah isla markaana albaab cusub u furay Soomaaliland waxaana ka mid ah hadalkiisii waxa ugu horeeya runtii oo arrintii aan halkan idinka sheegaya in si rasmi ah ay shirkadii aan maalin halkan ugu timi berigi dhaweyto ay noo xaqiijisay in ay ballanqaadkii ay noo ballanqaaday inay macdan baadh kab samayso dalka Soomaaliland inay oofinayso macdan baadhkaasoo dhowr waji yeelanaya wejiga ugu horeeya oo noqonaya macdanta lagu baarayo qamar sinaaciga ama la yidhaaho remote sensing mineral resource investigation oo muxuu ahaa qamar sinaacyada Shiinuhu leeyahay iyagoo adeegsanaya inay dalkeena intuu leeyahay inoogu baarayaan macdanta khayraadka dalkeena ku jira siday u fahmaan waxay kala yihiin meelahay ku kala jiraan taasi markay dhamaato waxa dabeetana macluumaadkaas la sii dabagelayaa in ay keenaan muxuu ahaayey engineers iyo geologists baaritaankaas sii wada oo dhulka iyagu yimaado oo soo dega dalka soo dega oo baaritaanka halkii ka qaada taasna waxaa la yidhaahaa complete geological assessment waxa la yidhaaho baaritaan rasmiya oo markaa xiganaya macluumaadkii uu qamar sinaacigu uu keenay inay magaranaysaa halkaa iyaguna muxuu ahaayey ay ka amba qaadaan oo meelihii uu qamar sinaacigu tilmaamay waxyaabaha riili ugu muhiimsan khayraadkii laga filayo inay sii xaqiijiyaan oo aynu magaranaysaa markii aynu ogaano dalkeennan macluumaad taama ka hayn karo wixii khayraad aynu dalkeena ku jira macaadina runtii waxay shirkadu la kaashanaysaa macaadin baadhka laba group oo muhiim oo China groupka ugu horeysa waxa la yiraahdaa China RS ama waxa weeye remote sensing nimanka qamar sinaaciga China uu mugtiga mas'uulka uga ah ama hay'adda mas'uulka uga ah qamar sinaaciga China oo waxyaabo badan adduunyada intuu leeyahay mugtiga ka baara waxa ay kaloo adeegsanayaan geological bureau-ga gobolka Yunnan ay caan ku ah khayraadka department-kooda geology-ga China oo dhan really caanka ka ah ayaa iyaguna dalkeena ka shaqayn doona insha Allah oo inoo iman doona marka labadaas markay is adeegsadaan waxaan filayaa markii ugu horeysay dalka Soomaaliland waxaynu gacanta ku dhigaynaa macluumaad taama oo sugan oo aynu taaban karo oran karo dalkeena waxa ku jira halka iyo halkaasna ku jiraan insha Allah intaasna waa inta wax macluumaad caynkaas intaas oo xaddiga ayaa laga helayaa waxaanu runtii aad iyo aad u moogtay aanu muhiimadda u saaray sharikadan sidii hore u moogtay aanu wadahadallada ugu furay in ay nagala shaqayso sidii dhuxul dhagaxa dalkeena aynu filayna inay ku jirto oo muddo dheer wasaaraddu ku hawlanayd sidii aynu maalinkan maanta macaadinta dhuxul dhagaxda ula soo bixi lahayn in aynu maalinkan maanta hayno sharikadii wax inoo badqancay waxa iyaguna halkaasi hadallo ka jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo tamarta Cabdisalaan Xasan iyo agaasimaha waaxda tamarta ee wasaaraddaasi Ibrahim
gudoomiyaha baanka Somaliland oo weheliyo agaasimaha baanka dhexe ayaa kormeer ku soo maray sariflayaasha magaalada Hargeysa waxaana sheegeen in sixir bararkii ka jiray dalka hoos loo dhigayo warkaasi waxa inoo eegaya wariye Xamse Cali Bulbul gudoomiyaha baanka Somaliland Cabdidir Cabdi iyo agaasimaha baanka Somaliland Cabdullaahi Xasan ayaa si wada jira maanta waxay kormeer ugu soo mareen sariflayaasha magaalada Hargeysa kormeerkani waxa uu ka dambeeyay kadib markii saraka uu ku yimid dollarka gudoomiyaha baanka Somaliland oo goorantii ka hadlay kormeerka ay ku tageen sariflayaasha waxa uu sheegay in baanka Somaliland uu ku dadaalay culeysna uu saaray sidii sicir bararka loo joojin lahaa dhinaca sarifka lacagaha qalaad isagoo ka hadlay goorantii ujeedada kormeerkiisa gudoomiyaha baanka Somaliland waxa uu ku yiri xil anaga nasaaran inaanu hadiyo goor sidii aan hoos ugu ridi lahayn dollarka aanu ka shaqadeeda galno marka dollarka kaco معيشتنا ويكعدا سيدا دي هذه قوري تاعي دولارك اللي هو جوجل جيلان جوجل وقتها حوالها ندرة دولارك هو جوجل وقت كانوا خلانا دولارك هو جيلان لبعض الجور برا بانكو هاول قل بولي هاي ومرنا دولارك سوقه وكسي دينيو ومرنا دولارك وسوقه كوروليو سيدا العقد دي مربا دولارك صدوق عاي مركا دلنا بانكو قاعدين haddaanu central bank inahay inaanu sii wadno hawsha aanu dollarka hoos ugu dhimayno agaasimaha baanka Somaliland Cabdullaahi Xasan ayaasna waxa uu sheegay in baanka Somaliland uu markasta ku dadaalayo sidii bulshadiisa loo daryeeli lahaa isagoo ka hadlaya waxa uu leeyahay waxaanu anagu iyo gudoomiyaha saakakan uu nimid inaanu sariflayaasha aanu xawada sarif suuq marayaan ogaano inaanu dhiiri galino oo aanu tusno inuu baanku diyaar u yahay inuu ay wada shaqeeyaan inaanu maanta go'aaminay horena u go'aaminay maanta aanu sii go'aaminay inaanu heerka sarifku halkii uu gaaray aanu gaarin uu dib uga dhaco waxa kale oo u nimid inaanu ku dhiiri galino inay baanka la shaqeeyaan oo ay lacagta forjeriga qabtaan oo marka maxaan ku lahaayay ay dhibaato timaado ay inaga nala soo xidhiyaan wada shaqeyn fiican baa naga dhaxaysan sida uu sheegay barkhad oo sariflayaasha ka midkiina waxaan anaguna ku dadaalaynaa inaanu gacan buuxda idin waxaanu ka codsanaynaa inaanu gacan buuxda ka helo saasaan ku shaqeynaa hadii la yiraahdo qaar ka mid ah sariflayaasha caasimada magaalada Hargeysa ayaana waxay soo dhaweeyeen tallaabooyinka baanka Somaliland uu qaaday dhinaca sarifka iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay kormeerka mas'uuliyiinta baanka Somaliland waxaana yiraahdeen anigu nin sariflaa baanay oo jooga suuqa dhexe suuqa sarifka waxaan joogay 18 sanadood wali agaasime iyo gudoomiye halka noogu yimi maanta koorto maana arag oo yidhi baalku waa sidee qabtaan maxaa sicir barka warrama maayirka caasimada Hargeysa ayaa ka gudoomay fanaanada Sahro Halgan laba damdamis oo wata qalabkoodii taas ay Somaliland u soo direen jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan wadankaasi Faransiiska warkaasina waxay noo hayaa wariye Khadar Quule maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko way weeliyaan xildhibaano ka tirsan dawladda hoose caasimada Hargeysa ayaa maanta ka gudoomay laba damdamiise oo wata qalabkoodii fanaanada u dhalatay wadanka Jamhuuriyadda Somaliland ee Saara Axmed Maxamed Saara Halgan qalabkani oo ay fanaanadu ugu tala gashay dawladda hoose caasimada Hargeysa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid waxaanu aad ugu mahad celiyay fanaanada Saara Halgan oo ku sifeeyay gabadh muwaadinad ah oo mar walba garab taagan wadankeeda Jamhuuriyadda Somaliland iyo dadkeeda alaabtan oo ah dibdemiska oo aan loo wareegnay qalabkan waa qalabkii ku jiray isbitaalka guud baa lagu wareejinayaa wixii dibdemiska iyo waxaana dawladda hoose waxaan uga mahadnaqaynaa alaabtan oo ah alaab aad u faa'iido badan intaasi kadib waxa goobtaasi iyaduna ka hadashay fanaanada Saara Halgan oo sheegtay in damdamiskani ay ka keentay dalka France lana kaashatay jaaliyada ku dhaqan wadanka Faransiiska jooga waxaan aad ugu mahad celinayaa Shukri Xuseen Jabbar iyo Xuseen Shanabeyle ayaan aad ugu mahad celinayaa iyaga la'aantoodaana alaabtii suurtageliyeen oo si fiican aad ila soo caawiyay oo ila soo helay waxaan kaliya ma qaban dad badan oo Faransiis ay soo caawiyay aad baan ugu mahad celinayaa sida sharafta maayirka iga gudoomay alaabtan dhinaca kale isla goobtaasi waxay fanaanada Saara Halgan ugu deeqday alab kala duwan oo ah kuwa isbitaalada kuna wareejisay maamulaha guud ee isbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Axmed Umar Askar
oo ay ku wareejisay qalab kala duwan oo iskugu jira sariiro. Dr. Axmed Cumar Askar waxa uu ugu mahad celiyay fanaanada Sara Halgan sida wanaagsan ee mar walba ay u xasuusto wadankeeda Jamhuuriyadda Somaliland. runtii waxa weeyaan waa wax lagu farxo waxa leenahay jazaa'uka Allahu khayr hawsha aad soo qabatay waxa ku jira qalab caafimaad oo ay ka mid yihiin qalabka wax lagu dhayo lagu daweeyo waxa ku jira mashiino badan oo iyagana ah mashiinada martay lagu baaro meelaha ama qaybo kala ahaato oo caafimaadka waxa ku jira sariiro waxaan rajaynaynaa alaabta waxa lagu faa'iideyn doonaa dadka buka sidii loogu talagalay martay u soo qaadan dadka isku daydaa waxaan ballantaadayna inay gaari doonaan dadkii loogu talagalay. gebagabadii fanaanada Sara Halgan oo sheegtay in agabkani ay uga wakiil tahay jaaliyadda ku dhaqan dalkaasi Faransiiska ee u dhashay wadanka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanay sheegtay in ay jaaliyadda Somaliland mar walba garab taagan yihiin dalkooda iyo dadkooda. hanti dhowraha guud ee Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dad sifo sharci darro ah u soo cashuurtay gaadiid oo la xukumay. warkaasi mar kale waxaynu eegaya wariye Xamse Cali Bulbul. hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliland markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay maxkamad la soo taagay xubno sifo sharci darro u soo cashuurtay gawaadhi. hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliland Maxamuud Cabdi oo magaalada Hargeysa kula hadlayay TV-ga qaranka Soomaaliland waxa uu sheegay in hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliland uu markaas ku dadaalayo sidii musuqmaasuqa iyo wax istamarinta loo joojin lahaa isagoo ka hadlaya hanti dhowrku waxa uu yiri marka waxa waa baaris aad u qodobad oo talaabo la qaad karin ilaa aad gaadho xaqaaqa runta ah oo aad cadayso in baabuurku aanu cashuurayn dokumentiskuna been yihiin aad runtii dhulka u soo gashay ee Somaliland keena asaata dabagal dheer baan ku sameynay baabuurta madaxweynena sidaan hore aan mar hore uga qoranay waan qabanay dadna waxaan u gubnay hay'adaha garsoorka way socotay burco hore maqasheen biliiska burco baaran hore loo xukumay Hargeysa iyo sharafteed maxkamadeedu iyana waxay dhamaatay baabuurtaan ku qabanay Hargeysa dhexdeeda baabuurtaas hore aan horan wareys nooga ka yeelanay waxay ahayd runtii tarig amba khiyaamo aad u dheer وحاجة documentation كأبا documents كبارات خصوصاته واحد يده وأدق تايس الله لا يلا استعمالي documents اللي سكنجري وكمبيوتر لو قاضي وهذا نقول خالق وصي قاضي وأك كوي ضغطها أما صار أخرى صارت كوي ضغطها أي جماعة أدق تاي دتنا وحاول يقاه جارة فأوصل مركز بدك كتماطو أي الله وصل توكله يروح ولا بيقولين بيكسر جلسة حاجة حدود الضبارية marka waa aragta sida qof u joojin kara ama arki kara ama dadka baawarta noocaas wataara iyo dadka falalka ku daba ku dhex jiraaba in kastoo la xukumay shalato 3 sano iyo wax ka badan oo xukumay sida la socotaan dadkii sameeyay baabuurkan madax hore ka soo sameeyay marka hore baabuurta u soo sameeyay dokumentska baanaadka haddana waxa weeyaan in kulli dadku marka wax kala iibsanayaan taxadiraan aad iska hubiyaan notary public notaries iyo aad u hubiyaan wadankaasi Ruushka ayaa digniin adag u diray wadamada reer galbeedka kadib markii gobolka Crimea uu goostay in uu ka mid noqdo wadankaasi Ruushka. wadamada reer galbeedkuna waxa ay sheegeen inay cugna qabatayn saari doonaan wadankaasi Ruushka. warkan hayaa hadaba waxay noo eegaysaa wariye Ishrax. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dalkiisu uu tallaabo ka qaadi doono haddii Mareykanka iyo Yurub ay ku soo ragaan cunaqabatayn. dowladda ku meel gaadhka ah ee Ukraine ayaa goor sii horeysay sheegtay in hal askari looga dilay iska hor imaadyo ka dhacay Crimea. arrintan ayaa timid saacado yar kadib markii ay hogaamiyayaasha Ruushka iyo gobolka Crimea kala saxeexdeen heshiis Crimea ka dhigaya qayb ka mid ah Ruushka. dhinaca kale militariga Ukraine ayaa sheegay in mid ka mid ah askartooda uu iska hor imaad ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawac. ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in khilaafka uu salaysan Crimea uu hadda isku bedelay colaad hubeysan. waxa uu ugu baaqay Mareykanka iyo Britain
in ay gacan siiyaan Ukraine. dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysay qaabka uu Ruushku kula wareegay gobolka Crimea waxaana ay ku tilmaamtay dhul xoog looga qaatay isla marhaantaana meel ka dhac ku ah madax banaanida Ukraine. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisu inuu cuban qabatayn dheeraad ah ku soo rogi doono Ruushka. diyuuradaha wadanka Israel ayaa duqeymo u geystay goobo ay degan yihiin ciidamada wadankaasi Syria. warkana waxaynoo eegayaa wariye Jimcaale aw Cali. diyuuradaha dagaalka Israel ayaa duqeeyay goobo ay degan yihiin ciidanka Suuriya oo ku yaala buuraleyda Golan kadib markii ay miino ku dishay laba askari oo Israa'iiliyiin ah jiida dhulka buuraleyda ah. duqeyntan oo dhacday goor habeenimo ah waxa ciidanka Israel uu ku sheegay bayaankaas in duqeyntaas ay la beegsadeen fadhiisan ciidanka Suuriya leeyahay xarun tababar iyo goobo ay madaafiic yaalaan. waxaana wararku sheegayaan in diyuuradaha Israel duqeeyeen fadhiisin ay leeyihiin ciidamada Suuriya oo ku yaala mandaqada Al-Qandiriya ee buuraleyda Golan. bayaankan waxa kaloo ay ciidanka Israel ku sheegeen in goobaha ay duqeeyeen ay gacan ku lahaayeen weerarkii la beegsaday salaasadii ciidanka Israel. waxaanu bayaanku intaa ku daray in maamulka Bashar al-Assad uu dusha u ridan doono wixii dhibaato ah ee soo gaadha. wararka laga helayo dhinaca kale ciidanka Israel waxay kaloo ay sheegeen in miina lagu qarxiyay meel ku dhow mandaqada Al-Siyaaj ee xuduudda ay Suuriya la wadaagaan. minadaas oo la kacday gaari ay leeyihiin ciidanka Israel oo jidaasi marayay. waxaa la rumaysan yahay in Israel gudaha dhulka Suuriya ay duqeeyeen dhowr jeer tan iyo sanadkii 2013. intaasna daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii aanu idinka haynay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. warkan iyo warar kale oo faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan baahimahayaga soo socda. anigoo Jamaal Axmed Naasira iyo waliba bahdii kale ee igala qayb qaadatayba waxaanu idinkaga tagaynaa is aragtimo qal dambe ka hor. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.